السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا دمان أصحابنا هذا كل صاحبنا حديثنا صباقتي أدب دعوة ما سنتهي حديث هورنا رجعتنا سيدا كلام كسر بيننا سودبو حديث أنا جمد دين ما تنقص صبر سيسن كان ما تحقق بلاونا سيدتان دكتور جون iyo dr june waxay ka howlgalaan isbitaalka ku yaala magaalada Kuuriya ayagoo howlada shaqo ku guda jiro waxa dhacday maalin kamid ah gabar in loo keenay gabadhaas la yiraahdo Maria waxay ahayd gabar xanuunsan waliba isku bedeshay mararka qaar ay noqoto xayawaankii Maria cudurkan wuxuu ku soo bilowday ayadoo jirta 4 sano haddana waxa jirta 8 sano Maria isbitaal badan ayaa jira la geeyay laakiin xaaladeeda caafimaad waxa way ka qawaayeen marka dambe natiib wanaag waxa dhacday isbitaalkan si lama filaan in loo keeno dhakhaatiirta isbitaalkan ka howlgashay inta badan Maria way ku daaleen xaaladeeda caafimaad si ay dib ugu soo celiyaan laakiin inta badan dadaal badan ayay sameeyeen wayna ka rajo dhigeen inta badan waxa dhacday in gabadhan dhibaatooyin fara badan isbitaalka dhexdiisa inay ka geysato maalmo kamid waxaa dhacday dhakhaatiirta ayagoo raban inay daaweeyaan Maria dhibaato badan ayay geysatay dadkii oo dhan ayay la dagaalantay kadibna ugu dambeyntii waxaa yimid Dr. John ayiri aniga la hadlay waxaa fursad ii siiya Dr. John wuu soo baxay kadib Maria dhankeeda ayuu soo aaday Maria asiga eegaysa si fiican waliba waxayna doonaysaa ayada inay asiga dhibaatayso laakiin asiga wuxuu rabaa inuu ayada daaweeyo wuu soo dhawaaday Dr. John kadib mid saaxiibkiisa wuxuu leeyahay ka joog midana sameyn saan waa qalad u kaadi qoftaan waa halis gabadhan waa halis iyo ku dirna iska ilaaliyo Dr. John laakiin midaas asiga wuu ku madax adeegay kadibna gabadhan dhankeeda ayuu soo aaday ayadana asiga ay fiirinaysaa wuxuu rabaa asiga inuu ogaado ayad wax gudaheeda ku jiro ama shaydaanka gudaheeda ku jiro inuu la socdo Dr. John gacan u soo tagay Mariana sidoo kale way fiirinaysaa kadib waxaa dhacday si toos ah Dr. John gabadhii gacanta inay ka qaniinto Dr. John dhaawac fara badan ayaa meesha ka soo gaaray dhibaato badan ayuu kala kulmay gabadhan sida uu daaweeyay laakiin nasiib wanaag asiga dhibaato loo geystay gabadhan waa gabar halisa dhakhaatiirtii oo dhan ayaa isugu soo baxeen meesha badan iyo muran badan ayaa ka dhashay Dr. John sidii dhibaato ku soo gaartay gabadhan waxay doonaysaa dadka meesha jooga dhan inay dhibaatayso Dr. John uu fiirinaya dhakhaatiirtii oo dhan arrintan runtii waxay la noqotay mid fajac ah waayo gabadhan oo da'dan la jirta haddana kadib xayawaankii kula dhaqmaysa dad walba dhibaataynaysa dhakhaatiirtii oo dhan arrintaas waxay la noqotay fajac aad iyo aad u balaaran Maria runtii waxay rabtaa qof walba meeshan jooga inay dhibaatayso laakiin dhakhaatiirta ayaga way ku madax adeegaan waxayna rabaan gabadhan inay caabiyaan oo waliba xaaladdeeda ay ka daba tagaan kadib waxaa yimid Dr. Meg ayaa kadib wuxuu yiri u kaadiyay bal aniga la hadlayo maxaa sameynaysan say wax u jiraan Meg arrintii wuu la yaabay markuu arkay gabadha xaaladda ay ku tugan tahay ama waxyaabo meesha ka dhacay markuu arkay madaxa ayuu gacanta saartay mid saaxiibkiisa wuxuu leeyahay ma aragtid waxyaabo dhacay gabadhan waxay leedahay arrintan ma sameyn karna anaga dib waynaan u laabanaa ama gabadhan waa inaan meesha ka saarnaa isbitaalka aan ka saarnaa xaqiiqatan doctorka arrintan markuu arkay aad buu ula yaabay gabadhan markuu arkay xaaladdan ay ku sugan tahay doctorkii waa uu la yaabay waxaana ka go'an gabadhan wax walba ay ku qaadato in uu daaweeyo mid kalkaaliyo isbitaalka ka shaqeeya ayaa wuxuu yiri aniga tijaabinaa bal u kaadiya gabadhii dhankeeda ayuu soo aaday laakiin gabadhan ma rabto cid bini'aadna dhankeeda in uu soo aado amaba in uu ayada fiiriyo xataa gabadhan bini'aadamku way la yaabtaa xaqiiqatan gabadhan cudurkan wuxuu ku bilaabay ayadoo intan ka sayar balse Dr. John dadaal walba ayuu sameeyay wax walba ayuu sameeyay gabadhan si ugu dhawaan lahaa amaba uu ogaan lahaa gabadhan waxyaabaha ku kalifa waxyaabahan in ay sameeyso ayada Dr. John wuu soo baxaya gabadha dhankeeda ayuu soo aadaya asxaabtiisa ayuu la hadlaya wuxuu leeyahay idinka ii soo dhawaanina aniga ayada fursadna si wax walba ana ka soo saaray ama ana ogaanaya ayaga muhiimadooda waxay tahay gabadhan inay mar ay gacanta ku dhigaan markaas kadibna waxay rabaan inay daawiyaan ama xaaladda caafimaad ay la socdaan Dr. John go'aan ayuu qaatay go'aankaas oo gabadhan wax walba ku qaadato inuu ku dhawaado amaba waxyaabo ayada ay jeceshay inuu sameeyo Dr. John waa kana uu fariistay kadibna wuxuu sameynayaa sidii xayawaankii kale ayuu isku dhigaa si uu gabadha ugu dhawaado kadib gabadhiina asaga fiirinaysa asagiina ayada ayuu eegayaa dhakhaatiirta dhammaan arrintan waxay la noqotay mid fajaca sababtoo ah ninkan waxa soo gaaray dhaawac fara badan gabadhana meesha ka qaniintay waxay ka baqayaan inuu noqdo sidoo kale ama isku bedelo xayawaankii kale gabadhan sida saxda ah qof walba ayada ay qaniintay wuxuu noqonayaa sida xayawaankii kale doctorka xaaladiisa caafimaad aad bay u sii liidanaysaa asigoona tiisa fiirinaynin ayuu gabadhii doctorka gacanta ku soo dhigay gabadhii ugu dambeyntii waxa dhacday sariir in la saaro kadib dhammaan dhakhaatiirta ayaa isugu tageen markay isugu tageen gacmaha ay ka qabteen doctorkii waliba asigoo ka qoomameenaya gabadhan xaaladda ay ku sugan tahay markaas kadib gabadhii in badan ayay qeerisay laakiin cid bini'aadan hadalkeeda maqashay ma jirto sababtoo ah gabadhan xaaladdeeda aad bay u xumeed Dr. John cirbadii ayuu soo qaadanaya si uu gabadha ugu diro cirbadana waxa way cirbad suuxtina si gabadha loo suuxiyo kadibna ay u ogaadaan xaalad walba jirkeeda haysata ama dhib walba ay ku sugan tahay in ay karo ay kala socdaan markii cirbad lagu diro markaas kadib gabadhi waa ay suuxisaa markii socdo kadibna doctoradii dhammaantood way ayaaban yihiin waxay sheegan ay leeyihiin doctorka ugu weynaa ayuu wuxuu leeyahay gabadhan reerkeeda waa inaan raadin wax walba aan ugu qaadato sababtoo ah gabadhan waxaa laga yaabaa magaalada haddii sidaan lagu sii dayo dad badan inay dhibaatayso dadkaas annagoo difaacayna waa inaan wax walba aan u samayna gabadhan si ay iyada xaaladdeeda caafimaad dib ay ugu soo noqoto amaba wax un ayada ay ku noolaato aan u samayno waayo qof walba ayada qaniinta wuxuu noqonayaa sideedoo kale doctorkii markii arrintaas uu soo jeediyay dhammaan arrintaas kumaysan waafaqin dhakhaatiirta dhammaantooda sababtoo ah waxay leeyihiin arrintan halisteeda ayay wadataa Dr. John meeshuu dhaawac ka soo gaara waa laga dhigaya sababtoo ah wuxuu ku sugan yahay halis xaaladiisa caafimaadna hadda ma wanaagsano oo Dr. John naftirkiisa ayaaba laga yaabaa in uu noqdo sidii gabadha ay tahay oo kale Dr. John saaxiibadiisa ayaa waxay leedahay maxaa kugu kalif inaad sidaan samayso kadibna wuxuu leeyahay aniga bini'aadanimo ayaan u sameeyay gabadhan waa isbitaalkan muddo badan ay ku jirtaa wad la socota Dr. John saaxiibadiisa ayaa waxay weydiinaysaa gabadhan adiga aqoon aad u leedahay
markaas wuxuu leeyahay aniga gabadhan aqoon u mari laakiin waxaan rabaa gabadhan inaan caabiyo wuxuu leeyahay warka badan iska day adiga wanaad garab igu siisaa gabadhan sirarkeeda aan ku heli lahaa markaas waxay leedahay aniga midaas kugu macaamil karo sababtoo ah halisna sida banaan lama soo dhabaysto doorka wuxuu ku madax adeegaya in gabadhan wax walbo ay darteed inuu u sameeyaan saaxiibadiisna waxay leedahay arrintan waa halis waa inaad gacmaha kala baxdaa doorkii go'aan cad ayuu qaadanaya oo ah in gabadhan wax walbo ayada farxadeeda amaba iyada caafimaadkeeda ku soo noqonaya inuu u sameeyo doctorkii waxaa ka go'an in gabadhan dhakhaatiirtii ayaa waxay go'aan ku wada gaarayaan gabi ahaantoodaba gabadhan reerkeeda in la raadiyo markaas kadibna in ayada tilaabo sax ah in laga qaado si xaaladeeda caafimaad kor lagala socdo amaba loo dabiibo waayo waxay leeyihiin arrintan waa arrin halis ah dadkoo dhan waxay la noqonaysaa fajac haddii aan gabadhan sidaan magaaladan kusii dinan waxaa laga yaabaa gabadhan dad badan inay dhibaatayso amaba sideedoo kale inay noqdaan doctor john hadalka waa uu ka dhegaysta laakiin doctor john dhakhaatiirtan waxay sheegayaan dhammaan hadalkooda kuma socdo sababtoo ah ayaga waxay rabaan in waddo sax in ay qaadaan si gabadha familkeeda loo helo kadibna loo ogeysiiyo xaaladda gabadhooda ay ku sugan doctor john wuxuu ahaa doctor qalbi wanaagsan sababtoo asagoo 5 jira ayuu bilaabay xayawaanada inuu caabiyo wax walba ayaga farxadooda tahay inuu sameeyo doctorkiina gabadhan markuu arkay xaaladdan ay ku sugan tahay doctorku wuxuu yiri aniga yaraantii ayaan ahaa sidaan in mar walba xayawaanka inaan caabiyo gabadhan xaaladii ku sugan tahay maan xaalad halkan ku fiirsan karo doctor john wuxuu galay xasuus asigoo intaan ka siyarna xayawaan amaba asigoo xayawaanka loo yaqaana bakaylaha ku malaasaya gacantiisa doctorka runtii arrintii waxay la noqotay mid fajaca waayo markaad bini'aadan tahay mar walba waxaad ogaataa bini'aadanimadaada mar kasta inaad doonayso qof kaloo dhiban inaad ku caabiso doctorkii go'aan ah wuxuu qaatay gabadhan mar walba ama wax kasta oo ayada xaaladda caafimaad ay ku soo noqon karto inuu u sameeyo doctorkii wuxuu ka qaadanayaa in uu gabadhan reerkeeda in uu raadiyo laakiin dhakhaatiirtu waxay leeyihiin annaga waxaan ku amarno keliya ama isku waafaqno waa inaad samayso wax ka baxsan adiga ma samayn kartid saaxiibadiis ayaa waxay ku leedahay sidaas doctorka wuxuu leeyahay aniga waxaan rabaa ayaan samaynayaa gabadhan waa inaan caabiya aan daabeeya dhakhaatiirtan waxay leeyihin gabadhan waa halis halisteeda ayay wadataa adigana halista inaad u beerarto waa laga wanaagsan yahay doctorka maya ayuu leeyahay saaxiibadii ayaa kadibna haraanti ku rufanaysa markaas kadib waxay leedahay adiga maalinta maxaa samaynaysaa arrintan waxaad u malaysaa wax lagu cayaari karo waxyaaba aad samaynaysa inaad ka fiirsato ayaa loo baahan yahay gabadhan waa gabar halisteeda wadato asina wuxuu leeyahay waxba igama gelin taas waxaa iga dhow isbitaalka inaan ka tago doctor john go'aan ah wuxuu qaadanaa isbitaalka gabi ahaanba inuu isaga dhaafo shaqadii inuu iska waayo doctorka talada ama tusaalada la siinayo wuxuu u arkay in dadkan ay yihiin lid ama gabadhan elid inay ku yihiin gabadhii ugu dambeyntii waa la soo wadayaa kadib waxaa la keenaya qaybta emergencyga xaaladeeda waa la fiirinaya wuxuu leeyahay midkan kalkaaliyaha gabadhan runtii sida bini'aadinka kale uma shaqaynayso maskaxdeeda waan isbitaalkan laga saaraa arrintaasna dhakhaatiirta kale ayaa isku waafaqeen laakiin doctor john banaanka ayuu ka yahay sababtoo ah wuxuu dhahay aniga gabadhan darteeda waxba ayaan u samayn karaa inta ayada isbitaalkan laga saari lahan waxaa ka dhow aniga isbitaalkan shaqadiisana joojo weliba shaqa fariisin aan isku sameeyo oo shaqadin aan ka tago kadib gabadhii waa la soo wadaya gudaha ayaa la soo gelinaya markaas kadib waxaana loo keenayaa isbitaalkii caruur ku sugnaa si gabadhan farxad ay u dareento amaba waxyaabo ayada qanacsanaan ah hataa wax yar allah ka dhigo inay u dareento kadib ilmihii ayaa lasoo kaxeenaya oo waxaa si toosa loo keenaya dhitooresada weyn dhankeeda markaas kadib waxay leedahay keena ilmo waxaan rabaa hal mar inaan hal arrin idin tusiyo gabar walaashiina isbitaalkan ku jirto waxaan rabaa gabadhaas inaad ka quslisiisaan ama farxad aad u dareensiisaan ilmihii waa lasoo kaxeenaya meeshii ama qolkii gabadha ay ku sugnaad ayaa loo keenaya si ayada waxyaabo qanacsanaan yar hataa ay u dareento kadib dadkii dhan way soo wada baxayaan dhankeeda ayay soo aadayaan gabadhiisi ay farxad ay u dareento ayada ay rabaan inay ka quslisiiyaan doctorkina dhankeeda ayuu soo aadaya kadibna waxay leedahay aamusa aniga quslisiinaya ama aniga qanacsanaya weydiinaya doctorkii wuu soo baxaya wuxuu soo aadaya gabadhii maariya dhankeeda ayuu soo aadaya markaas wuxuu leeyahay raashin cunto ayaa lagu keenaya kadibna inaa raashin cunto doctorka wuxuu leeyahay raashinka rabta weydiiya kadibna in la siiyaa doctorsada waxay leedahay in talisini ka hor waa inaa horta marka hore ayada qanacsanaanteeda aan ka shaqeyna kadibna farxad ay dareenta markaas kadib ayaa raashinka loo keeni karaa doctorka ugu weynaa isbitaalka wuxuu asaga aad iyo aad aga xun yahay doctor john go'aanka uu qaato oo isbitaalka inuu ka tagayo arrintaasna aad iyo aad ayuu aga xumaaday doctor john xataa saaxiibadiis arrintaas aad bay aga xumaatay markaas leedahay adiga maxaa ku kariftina sidaan aad samayso markaas wuxuu leeyahay aniga gabadhan waa inaan caabiya wax walbana u sameeyaa gabadhana si loo caabiyo darteed wax walbana u sameynaya kaalmo waalanta ayay leedahay maskaxdaada ma fadhisaa maxaa waxyaaban adiga aad samaynaysid kaal isbitaalka haddii aad ka tagto waxay kula noqotay isbitaalka keliya inaad ka tegaysid xataa kula mahana miya aniga inaad iga fogaanayso maxay tahay sababta saan u samaynaysid kadib wuxuu soo qaadayaa bahal la cuno jeebkiisa ku jiro kadib saaxiibadii ayuu dhiibayaa kadibna gabadhii waa la yaabaysaa gabadhii ayay rabaan dadkan inay siiyaan raashinka ama dhakhaatiirtii isbitaalka ku saraa laakiin gabadhii ayada way ka diidaysaa oo wax walbo ayada afka loo geliyo ayaga ayay ku tufaysaa wejigooda gabadhan runtii waa gabadh xayawaanad ah waxayna rabaan ayaga inay sasabaan amaba si ay raashinka u siiyaan doctor john waa uu soo baxaya markaas kadib gabadha dhankeeda ayuu soo aadaya markuu soo aadana wuxuu rabaa gabadhan inuu ayada raashin siiyo raashin ayuu soo qaadaa doctorkii
kadib raashinka ayuu kala furayaa markaas kadib gabadha dhankeeda ayuu soo aadaya markuu soo aadana wuxuu rabaa raashinkaas in uu siiyo agteeda ayaa loo keenaya raashinkii kadib doctorka ayuu leeyahay hadda waxaa laga yaabaa raashinkan inay ku qanacdo ayada boqolkiiba yes waayo raashinkan waa raashin ayada yaraanteeda ay cuni jirtay raashinka marka loo keenay gabadha waxaa dhacda raashinka si toosan ay u cunto dhammaana hal mar ay afka gelinaysaa xataa gacanta kuma cunayso waxay ku cunaysaa si toos ay afka gelinaysaa oo waxay u cunaysaa sida xayawaankii oo kale daawadood ku maasan tahay haddii aad nala joogtay muuqaalka bilow iyo dhammaad haddii aad ka hesheen baarti 2 ayaan kasoo samaynayaa waa mahadsantihiin comment share like subscribe